Hello, habeen wanaagsan. Hi to everyone. I just like to make this video because I really need to say something, because some people are really irritating me, wallahi billah. Especially Somalida gabdhaha af Somali ba hadda niugu hadlaya. Please, if anyone wants to hear in English, you can ask a Somali person, but I'm going to just talk in Somalish for my precious Somali girls that are little bit diluted. They don't know what they're talking about most of the time. So we're just going to help you out here. I'm going to help you out, for this once time. My darling, my sisters from Somalia, you probably look a little bit different than the most African women. Yes, but it's not because your ancestors come from Middle East or you come from like European DNA or something like that. Please, if you don't know nothing about this world and you only getting educated by the white man, which means even if you go to Harvard, me as a young Somali man living in the West, and I don't need even a Harvard education to know what my DNA is or where I've come from or how many research that I've done or anybody else in the planet. We already know the manipulation of DNA and what's going on. Everything else that especially little precious girls don't get it because they mostly occupied with the hottest guy on TV or which guy has a lot of money or whatever, non-interesting stuff. So let me please help you out. gabdhaheena Soomaalida waxaad tihiin daciifiin nacasiin waani nacay aniga waxaan iga jecelahay mataqaanaa dameer baan iga jecel hadda ma fahantay because gabdhaha waxaan ka hadlayaa kuwa internetka soo ku doonta I love internet. nin cadaan ay la soo fadhiisanaysaa waxay isa ka dhigaysaa naag modern oo new age baan ku socdaa hadda ninka ay la fadhida ma aragtay tan gabadhan videoga ay sheekeynaysa DNA nin cadaan ag fadhiya Irish iyo wuxuu yahay soo eegay bal fiiri wiil Soomaali ka fiican may weedi markaas DNA-geeda gashay markaas wuxuu ku leeyahay Soomaalida oo DNA-geeda oo dhahayaan waxa anaga manihin manugu Soomaali pure baan nahay baan leedahay fiiriya nagaan waa daciifin cid walba madaxa ka wasi karta Allah maxaan nacay Allah naag daciifa you are nothing waxa tahay male runtaan nii sheegay quruxdaadana bulshada tahay waxa qurux ay wax ku taraysa maxay ku taraysaa fucking nin cadaan oo waqtiga afkiis uray oo cadaankiis kaliya qurux ba adigu rabtaa kaliya fuck you bitch waxa tahay male nagabdhaheena saas waa Abu Fiir daciif ay noqdeen marka iska ilaaliya dhoocilahan oo kala wasaqda marka meel walba YouTube ay ku heshaan tii rabta ha noqoto kashifa runtana u sheega anagu madow baan nahay madow bani aadam waxaan dadkii ugu horeeyay originalka DNA-geena kaliya ba cid walba ku jirto other DNAs cannot be color-ka barta hadda color madowa hadda cadaan ku dartid muxuu noqonayaa brown buu noqonayaa laakiin color cadaan dadka ma fahmaysaan idinka colorism siyaasad baa ka dambeys waxa ogtiin xataa male shada faka ban xeebeen maan walba noo soo fadhiisan internetka jaahilid baa tahay naag cadaan anaga waa ku soo dhigi karnaa maan walba waxay tahay male fuck off